waxaa masjidka jaamaca ee magaalada Boorama lagu soo gabagabeeyay tartankii xifdiga Quraanka Kariimka ah tartankan oo ahaa kii toddobaad ee noociisa ah ee lagu qabtay magaalada Boorama ayaa waxa ka qayb qaadanayay 256 arday oo 99 ka mid ay yihiin gabdho waxaana ardaydu ay ku tartamayeen 3 qaybood oo kala duwan oo Quraanka Kariimka oo kala ahaa 5 jis 15 iyo 30 jis waxaana ka qayb galay Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawaare Sheekh Beledka magaalada Boorama isuduwaha wasaaradda awqaafta iyo diinta ee gobolkan Awdal Sheekh Xamed Axmed Nadiif culimaa u diin dadweynaha aad u tiro badan iyo ganacsato kala duwan waxaana munaasabadii tartanka Quraanka Kariimka ka hadlay Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawaare waxaana uu ka waramay ahmiyadda tartanka Quraanka Kariimka uu leeyahay waxaana uu ku baraarujiyay waalidiinta in barashada Quraanku ay tahay mid loo baahan yahay wuxuuna u duceeyay cid kasta oo ka qayb qaadatay suurtagalka tartankan xafidka Quraanka ee lagu qabtay magaalada Boorama waxa isaguna halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda awqaafta iyo diinta ee gobolkan Awdal Sheekh Xamed Axmed Nadiif tijaarta ama ganacsatada aadka suurtageliyey sanad walba diyaara da'yooda dhaxal wanaagsan iyo tusaale gumada wanaagsan la reebay iyagana waxaan leeyahay jasiir alaawii waxa isaguna halkaas ka hadlay Sheekh Cali Aadan oo ah gudoomiyaha tartanka Quraanka Kariimka ah ee ka socday magaalada Boorama ee maanta la soo gabagabeeyay waxaana uu u mahadnaqay cid kasta oo kaalin ka geysatay sidii loo meermarin lahaa tartankaasi Quraanka oo uu carabka ku dhuftay inay ku baxday lacag gaaraysa $10,000 sidoo kale waxa isaguna munaasabadaas ka hadlay Xaaji Cabdiqaadir Aadan Nuur Macaad من أراد الدنيا قفك يضمن من أراد الهداية فالهداية في كتاب الله يا أخي قفك هداية يضمن الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن waxaana ugu dambeyntii halka abaalmarino u dhaxaysa $200 ilaa $600 kitaabo Quraan iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyay 38 arday oo ku guuleysatay tartanka xafidka Quraanka ee magaalada Boorama lagu qabtay soddonka jis ee kooba gashay waa Suleekha Aadan Cabdilaahi gabadha kooga kooba gashay waxay leedahay jaa'iso $100 kitaab Quraan iyo shahaado qofka koobaad ninka maray وحبل عشيان محمد حسين فارح